السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات باهي سلام دمانتين إن شاء الله تعالى ما عنده واحد إسلاك دورنا أنا كنت بدورنا لكن فيديوغي بس عدا فيديوغي وراي نيجي ريسك أنا صار أنا مالك وراي مو في نفرت كوري هاي يو حلو استعماله أنا صار إني كقول بس تبغى كسر لواسط كوب عن دورنا متكسر هاي يو حلو استعماله مو في نفرت كوب حن صار شغلين لبا حلو استعماله moving average cross in moving average markets cross kirayaan uu sheegayo suuqaas trend bilowmayo ama up trend ama down trend haduu kor u jaro faster moving average ku waxaan idhi up trend ma bilowmaya hadii uu hoos u jarana waxa bilowmaya baan idhi down trend ayaa bilowmaya baan way waxaan idhi leeyahay qaarkood baa waxa dhacsa adoo crossing ka dhacay ayaa hadana trendigi la rabay aan soo baxay sidaa daraadeed waxaad siyaas kaga xaqiijiso markastaaba waxaad u baahan tahay tooliska la isticmaasho oo iskaga xaqiijin karayso inaad maaragtay crossing kani uu yahay trend dhaba sheegayo inaan suuqa consolidation markaa sheegayo marka insha Allah maanta waxaan eegi doonaa video aan eegi doonaa indicator-kii labaad aynu eegi doonaa insha Allah sida qaabka loo isticmaalo waxaan soo aragnay maalinka hore moving average-kii soo aragnay bal maanta waxaan eegi doonaa 8 days-kii qaabka loo isticmaalo isagana way waxaan eegi doonaa AD waa indicator-ka labaad ee isla eegi doono ADX waxa loo soo gaabiyay average directional index way ADX muxuu yahay maxaa loo isticmaalaa ayaan eegi doonaa ADX waxa weeye waa indicator-da kamid ah isla loo isticmaalayo inuu inoo sheego trendigi soo baxay aynu arkaynay ma trendi strong ah waqti badan soconaysa ama mise waa trendi waqti yar soconayso trendi weak trendi ah ka trendigu waa laba nooc way noqotay strong trend iyo weak trend way kamid ADX talis wuxuu noo sheegayaa ADX wuxuu inoo sheegayaa the status of the trend trendigani wadiisu intee lag trend waqti badan soconaya oo muddo sii jiraya mise waa trendi waqti yar soconaya oo kooban oo gaaban way ayuu inoo sheegi doonaa markaa ama momentum-ka trendiga la dhayaa soo kale waxa momentum indicator ba ayaa leeyahay marka momentum badan yahay markastaba waxa trendigaas waa strong trendiga momentum badan yahay oo momentum indicator ama momentum market waxa inoo sheegaya market kamarba la joogo ay momentum-kiisa waxa inoo sheegaya markaa qaabka loogu darso loo isticmaalo isla eeg doona markaa halkan indicator-iska bani dhammaan taagana la darsadaa kowalkan waxaan leeyahay ADX kaliya ku qoraya halkan iga soo baxaya markaa ADX and DI ayaan ku dhufanaya kadibna waa iska soo xidhay close boranaya isagu sidii moving average-ka كدوان حقا هو سكسو بحيا مركا واسطة حلينا ولا صعداء أي ميت كستاب معناها قارك كل شيء ويا مركا ويا هذا يسلكنا حتى بقى وحنا indicator كستاب وحلي ستين سو قارة ولا هي القاعدين كله في الفورمات أنا ركنا دمان ستين سكي أي نص بحيا مركا ستين سكي أي نص بحيا ويا sorry way day ku dhufanaal kan format waxay sidii soo baxay halkan waa input iyo style labada way kasbay badanka image ka ka bedelayno waa sidii style ka eegina halkan marka style ku halkan dhowr qodob baa inaga soo baxay marka waa DI plus DI minus ADX ee inaga soo baxay 11 way DI plus mid kasta waxay nugan doonaa bal wuxuu yahay inuu sheegayo DI plus DI minus ADX way suuq waxay in markastaba wuxuu ka kooban yahay beer kasta oo forex-ka ama lacagaha waxa weeye waa dad qaar iibsanaya qaar iibinaya weeye suuqu markuu abtar ku jirana
بايرس كافر بدن وسوق بايرس ماركت waxay sababaan market kor u kaco ayay sababaan oo price-ku exchange rate kor u kaco sidoo kale salaries of the market waxay sababaan in suuq hoos u dhaco sida daraaddeed markasta waxa meesha ka jira waxa weeye waa laba qodob waa buyers iyo sellers waa beerka dad qaar iska iibinaya iyo dad qaar iyagu sarfanaya ama iibsanaya weeye ka DI plus markasta waxa uu taagan tahay waa buyers of the market DI plus waa buyers of the market DI minus waa sellers of the market way halkan ay ku qoran DI plus waa maxay waa buyers of the market waa suuqa iibsadayaasha suuqa DI minus kuna waa sellers of the market eedhegaysku wuxuu sheegayaa hadaba eedhegaysku kaliya wuxuu sheegayaa isagu waa istranka momentum of the market way isagu marba wuxuu ka sheegayaa labada marba suuqii gacanta ku haya hadii suuqa uptrend ku jiro waxa la yiraahdaa buyers of the market ayaa badan ama DI plus ayaa badan oo suuqa gacanta ku haya hadii suuqu downtrend ku jirana sellers of the market ka ayaa badan dadka suuqa ay dadkii ka iibinaya ayaa badan sida daraaddeed waxa la oranayaa suuqaas ku jira downtrend ku jira eedhegaskuna waa maxay eedhegasku wuxuu ku sheegayaa marba suuqii gacanta ku haya hadii suuqa uptrend ku jiro buyers gacanta ku haya momentum-ka intee u leeyahay strong ba so weak hadii DI suuqa gacanta ku DI minus gacanta ku haya oo sellers of the market ka ahina wuxuu sheegayaa tan wuxuu sheegayaa markasta line-ka saddexaad strong isku daba badan yahay sama badna ay kaliya ayuu sheegayaa marka way waxaan DI plus ka kalarkan doonaan ka dhigin kariya green baan ka dhigayaa salaam ama strong baan ka dhigayaa line-ka tick baan ka dhigay way waa kuwa green ka waa buyers of the market taani color waa isticmaal karaysaa in isaga qaadin muhiim kana DI minus ama sellers of the market kana red baan ka dhigay strong tickna waan ka dhigay eedhegaysku balaga waan u deenayaa strong man way strong man ka dhigay like kan level waxa weeye waa level ka tooniga ku taagan ee dhibicda waxaan ka dhigayaa line caadi ah waa way kallayga toontiga hay waa line waa scale ku sheegaya cabirka marba inta marba way eedhegaska cabirka scale-kiisa uu ku sheegaya hadii 20 uu ka badan yahay ama ka sareeyo badanka waxa la yiraahdaa strong-gaasi trend-gaas waa strong eedhegas ka sareeyo hadii uu 20 ka hooseeyana waxa la yiraahdaa waa weak trend-gaas waa weak ama momentum-gaas waa weak baa la oranayaa way hadii mid kastaas leegno hadaba kan midow waxaan waa momentum of the market ee ka sheegay markuu kor u kacay wuxuu sheegayaa in suuqa momentum-kiisa kor u kacay hadii hoos u dhacay momentum-ka suuqa gacanta hoos u soo dhacay momentum-kiisu hoos u soo dhacay marka way halkan kan green-ka waa buyers of the market kan red-kana waa sellers of the market suuqa sellers marba istay marayeen markan hoos bay u dhaceen kor bay u soo kaceen hoos bay u soo dhaceen kor bay u kaceen hoos bay u soo dhaceen hoos bay u dhaceen marka waa kuwaas oo maxay waa sellers market xaaladaha kala duwan ay soo mareen horena waa socon karaysaa adeegi karaysaa xaaladaha kala duwan ay soo mareen way kuwa galka green-ka waa buyers of the market kor buu kacay hoos buu soo dhacay kor buu kacay hoos buu dhacay kor waa buyers of the market suuqa buyers intee marba marayeen xaaladaha kala duwan way haddaynu dabalkan u fiirsana markaa waxaan nidhi number 1 laba qodob baad u baahan tahay marka waxaan laba indicator bal isticmaalaya halka sare waa maxay waa la moving average halkana waa index bay yaal waxaan u baahanahay indicator-ka hore wuxuu ii sheego iyo kan waxay ii sheeganaysaa waafaqaan markay is waafaqaan waxay u dhowdahay in maaladay trade-kaas mid guulaysanaya u dhowyahay ama opportunity ama probability ku guulaysanaya ay badan tahay marka hadday indicator-radii is wax sheegaan
لكن سادي من نوع شغل من نوع wax kala sheego waxay u baahan tahay in trade-kaasi aanan si saxda ah maartay aanu trade aad u guulaysan yahay probability-giisu fiican marka way waxaan soo aragnay hore hadaba si aan u ogaado halka marka suuqu marayo waxaan idhi haddii crossing yimaado halka iyadoo la marayo crossing baa ka dhacay crossing markuu dhacay waxaynu ogaanay inuu suuqaasi waliba kii fastiga habaa kor u jaray in up trade la gelayo ayuu noo sheegi jiray moving average kaas inoo sheegay laakiin weakness buu lahaa weakness-kaasi waxa weeye marba ku sameynaya fake out so crossing sameeyay ayaanu up trade ama down trade marba kii la doonayay aanu sameynayn si aad taas ka xaqiijino waxaan u baahanahay in ay la isticmaalno ADX ku sameeyay inoo xaqiijinaya waxaan ugu xaqiijinayaa waxaan eegayaa number 1 haddii uu kor u jaray aan arkay up trade inuu bilowmayo ayaan markaa rajeynayaa up trade inuu bilowmayo ayaan rajeynayaa way up trade hadduu soo doonayo inuu bilowmo haddaan doonayo waa inay buyers market iyo qaar kor u kacay hal up trade maxaa sameeyaa bay nidhi waa buyers market suuqa dadka buyers-ka ayaa sameeya buyer markay bataan ay ka bataan sellers-ka ay up trade suuqa geliyaa bay nidhi ka up trade haddii halkaan arnay crossing halka markaan joogo ma ogi inta iga dambayso dhan laakiin se waxaan u baahan inaan ogaado oo saadaaliyo way halkaan marka waxaan eegayaa halkan haddaba markii halka la mariyay iyo sida wuxuu dhacay baan eegayaa markaa halkaa markaa marayay crossing ayuu sameynayay suuq way haddaan halkaa eegno halkaa markii la joogay suuqu cross buu sameeyey halkan aan eegayaa markaa ku beegan isla iyagoo ku beegan ayaan eegayaa markaa waxaan number 1 waxaan eegayaa up trend haddaan rajeynayo number waxaan eegayaa buyers of the market xaaladii ku sugan yihiin maxaalad hooseysa hoos loo socdaa mise kor loo soo socdaa si aan u dareemo in up trend la gelayo in kale aan iskaga xaqiijiyo markaa way waxaan gartay marka halka markaa marayay in buyers market kor u soo kicinayaan ayaan kor u soo kacaya ayaan arkaa marka waxay u muuqatay inuu maartay inay suuqaas up trend gelayo lambar 2 waxaan ku sii xaqiijinaya eegaya momentum of the market isna kor buu halka markii la marayay kor buu soo kacay 20giina kor buu dhaafay marka waxaan xaqiiqsaday oo ogahay in suuqaasi trendi feegaysan hayno marka soo laabanaysa ay tahay trendi muddo soconaysa sidii kaba dhacday ilaa halkaas way socotay ilaa halkaa way socotay intaan u baahan inaan ogaadana waa weynta halka lacag ka sameynayna waa weyntaas inaad ogaato trendiga xilliga bilowmayso inaad ogaato ayaa lacagtu ku jirta meesha lacagta ka sameynaysa way sidaan u ogaado number 1 moving average wuxuu siiyay EFTB in meeshaas trend ka bilaabmay up trend si aan u xaqiijiyo dhageysiga war isticmaalay number 1 waxaan eegayaa baan nidhi up trend marka la joogo waa inaad eegtaa buyers of the market xaaladii ku sugan yihiin waan eegay kor buu soo kacay sellers-ki hoos buu soo dhacay waa saan doonayay up trend marka la joogo waa maxay buyers of the market ka badan la doonayay inay kor u soo bataan sellers-ku hoos u socdaan baa la doonaya marka dawsa up trend marka down trend waa cagsiga waxa la rabaa marka sellers down trend waxa keenaya waa sellers of the market keenay hoos u dhacaa baa rabaa sidii kor u soo kacaan buyers-kuna hoos u dhacaan si up trend down trend ma bila marka buyers kor buu soo kacayaan momentum-kuna wuxuu sheegayaa marba suuqa si up trend kala gelaya inuu strong yahay ayay inoo sheegaysaa mar hadduu kor u soo kacay way marka halkaa waxaan gartay already markaan maro dee bay baan ku gelayaa anoonan meel kale eegin baan waan hubaa inay baag in muddo ay ku soconaysa aan ka qaadanayo maaragtay ilaa in muddo ay sii soconaysa waan hubaa trendigaasi aan sii raaci karaya marka way bal haddayna ino tusaale kale kan eeganaa meel kaloo crossing ka dhacay balalkan u fiirsada halka suuqa cross baa ka dhacay suuqa halka maxaa ka dhacay
halka markaan joogay suuqa cross baa ka dhacay way halkaas anigaya halka line-ka aan ku sawiray vertical-ka ayaan anigaya halka cross baa ka dhacay waxaan arkay moving average-kii oo cross sameeyey marka waxay bixinaysaa signal ah si weliba hoos soo jaray in meesha down trend bilowmayo ayaan already signal ah baysiis way si uu xaqiijinaya marka inaan hore ka galiya daf mise waan xaqiijinaya saan u xaqiijiyo dhageyska anigaya marka waxaan leeyahay moving average cross-ka waxay sheegeen in down trend la galayo saan u xaqiijiyo down trend kale waxa loo baahan yahay sellers damarka inay kor u soo kacayaan halka hadaan eegno isla bartaa ku beegayeen sellers-ki marka xaaladooda aad u fiican tahay inay kor u soo kacayaan ma ay down trend hadaan doonayaan inaan galo waa in sellers-ku suuqa gacanta ku hayaan waa inay iyagu yihiin qaar gacanta sare leh oo virusku ay hoos jiraan way waxaan arkay oo line-ka 20-ga ka soo sare maray kor u soo socdo waliba way waa signal fiican marka in halkaas strong tahay waxaan ku sii xaqiijinayaa hadana waxaan eegay hadana marka maray momentum waxaan arkay isla inuu kor u soo kacay ayaan oo kor u socdo oo laatanka ka sareeyo ayaan arkay taasina waxay sheegaysaa in good signal in trendgaasi strong yahay oo in muddo ka qaadan karaya marka baadana qiyaasna halka hadaad ogaatay crossing-kii markaad moving average-kana ku qiyaastay dad soo raacay lahayd waxaad ka qaadan karaysaa ilaa 25 bil baad ka qaadan karaysaa ilaa 25 bil aad ka qaadanaysaa muddo yar aad ku qaadan karaysaa marka way taas wata haddaba xilliyadu laba jeer waan aragnay maruu down trend sameeyayna waan aragnay number 2 waxaan xaqiijinayaa taloosin gacan dilayeen momentum-kana uu fiican yahay 20 ka sareeyani kaliya xaqiijinaya virus-kana iga hooseeya marka ab trend lagu jira ama la galayana kaliya waxaan xaqiijinayaa in kor u jaray virus gacanta ku haya momentum-kana uu fiican yahay kaliya ayaan isleeyahay sellers-ku ay maray hooseyga jiraan iyo hooseyga jiraan ayna soo noqonayeen goora way dalka waxay eeganaa imika meel uu consolidation ku suuq isticmaalay loo fiirso meelaha rabeen aad ka digto oo iska ilaaliso halka waxa dhacay halka waxa dhacay crossing baa dhacay halka markii la joogay suuq crossing buu sameeyay moving average-ki crossing bay sameeyeen in halka ayno meelo badan buu sameeyaa oo isku soo noqonaya haddii uu yahay suuq consolidation ku jiro hal meel ma ka soo qaadanaya halkaas aneegna way halka markaan inay suuq crossing bay soo sameeyeen oo hoosbad moodeen isu soo jareen kii halkaana hoos buu soo jaray oo inuu down trend sheegay galaya ayuu noo sheegay tusaalahan kala way meelaha kala duwan beegana halkaas kala cross buu sameeyay hoos buu soo jaray waxaan dareemayaa marka inay down trend ayaan waxa laga yaabaa inaan fisho kii bilugaba hoos soo jaray waxaan filayaa inay meesha down trend ka soo baxso inuu down trend ka soo baxay ayaa rajeenaya hadduu kii biluga hoos soo jaray down trend uu yara sameeyay dhowr kandal laba kandal hoos laakiin waxaan eegay halkan saan xaqiijiyo crossing-ga kaliya haddii la rabo down trend bilaabo in suuqa sellers gacanta ku hayaan sellers-ka ma arkaa virus waa ka fara badan oo ka sareeya yana hoos bay jiraan markaan ka hoos bay meel hoos ay joogaan xaaladii sellers-ka eegay haddaan rabo down trend fiican inuusan down trend sax ahayn u kala waado sellers-ka xaaladda ku sheegay xaaladoodu way hooseysaa 20 mid ka hooseysa hoosna way joogaan virus-kina hoos buu soo dhacaya momentum-kina hoos buu soo dhacaya si daradeed waxaad garanaysaa inaysan ahayn crossing-kaasi kii trendiga fiican sheegay soo ahayn baan ayaa ka garanaya halkaas ma la rabaa inaad iska ilaaliso kaliya suuqu marka uu consolidation ku jiro inaadan moving average cross-ka aadan xisaabsan edges-kuna uu ku sheegay laakiin mar kasta aad aragto suuqu cross sameeyay aad aragtay momentum-kii oo si fiican u sareeya suuq hadduu up trend galay virus gacanta ku haya haddii down trend galay sellers gacanta ku haya markaas sida aad u joojin ba halka sell ka gelaysa sell ayaad waxaad ka gelaysaa buy baad ka gelaysaa halka haddaad buy ka gashay halka haddaad
markaad xaqiijisay cross gaaratay virus cross ka caawinta ka aratay adigoo dhinaca ayaga dad ka gashay bay ilaa halka ku jirtay ilaa soo dabib ayaad keenaysaa marka waa isku xaqiijinaysaa marka inaan hal indicator kaliya la isticmaali karin ayuu ku sheegaya marka laba indicator baa isla isticmaasho kana cross ki hesho ay tahay good signal lambar 2 adeegto hadii aad la gariya virus ku sameeyay momentum kana seeyay marka down tira la galayna salar isku xaaladdu seen tahay momentum kana seeyay ayay insha Allah intaas ku joogay wixii su'aala iyo wixii kale insha Allah hadii la ka dhigo waxay isleeyahay doona insha Allah 10 kan damay ku eegi doona insha Allah hadii la ka dhigo sanadkan dambe insha Allah video dambe barisiyo wada dhiga diris insha Allah la socda hadii la ka dhigo insha Allah. Assalamu alaykum.